رئيسل وزراء dalka Lubnaan Saad al-Hariri ayaa 16 milyan oo dollar hadiyad ahaan u siiyay gabar u dhalatay dalkaasi Koonfur Afrika oo xayeysiisa dharka hoos gashiga ah ee markaasi ay ku dubaashaan dumarka. Sidaasi waxa ogaaday wargeyska lagu magacaabo The New York Times. Arrintan ayaa la ogaaday kadib markii waaxda canshuuraha ee dalkaasi Koonfur Afrika ay damceen in ay markaasi ogaadaan halka lacagtani ay ka timid, taasna ay keentay in arrinta ay gaadho ilaa maxkamad. wargeyska ayaa waraaqaha uu ka helay maxkamad ku taala dalkaasi Koonfur Afrika waxa uu ku ogaaday in gabadhani ay horay u sheegtay in xiriir hasaawo uu kala dhaxeeyo Saad al-Hariri madaxweynaha dalkaasi Lubnaan kadib markii ay ku kulmeen goobo loo dalxiisago oo ku yaala jasiiradda Seychelles. Ra'iisul wasaaraha Saad al-Hariri ee dalkaasi Lubnaan ayaa xilliga uu lacagta siinayay Mrs Van der Merwe waxa la sheegay in uusan wax haynin waxaana sidoo kale la sheegay in ay ahayd 2013 lacagta uu siiyay gabadha ayaa sidoo kale la sheegay in aysan waxba ku jabnayn oo uusan jabinin sharciyada u degsan dalalka Lubnaan iyo Koonfur Afrika. arrintan ayaa soo shacbaxday xilli dalka Lubnaan uu wajahaya dhibaatooyin dhanka dhaqaalaha. lacagtan ayaa la sheegay in uu markaa diray intii u dhaxaysay labada jeer oo xilka qabtay sanadkii 2013. Mrs Van der Merwe ee gabadha markaasi 16 milyan gacanta ku dhigtay ayaa xilligaasi ahayd 20 sano jir oo waxa ay ku soo caanbaxday xaysiis ay u samaysay shirkad samaysa cabitaanada. isla sanadkii 2013 ayaa hantida Van der waxay noqotay 15 milyan oo dollarka Mareykanka kadib markii ay lacagta ka heshay Hariri. lacagta ay heshay gabadhan ayaa la ogaaday kadib markii waaxda canshuuraha ee dalka Koonfur Afrika ay damceen inay canshuuraan lacagta lagu arkay akoonka bangigeeda. hase yeeshee Mrs Van ayaa ku dooday in lacagtaasi ay tahay hadiyad isla markaana ay tahay in la canshuurin. waan ku jeclahay saacadkaygiiyo ayay Van der Merwe ku tiri fariin ay u dirtay kadib markii ay u gudbinaysay akoonka bangiga loogu soo shubay lacagtaasi si ay guriyo iyo alaabo ugu iibsato. lacagta ayaa isla markiiba loo soo diray kuna soo dhacday bangigeeda. wargeyska The New York Times oo qoray warbixintan ayaa isku dayay inuu xiriir la sameeyo Van der Merwe si ay wax uga ogaato arrintaasi, balse waalidkeeda iyo qareenkeeda oo ku mataliyay maxkamadda ayaa ka gaabsaday in arrintaasi faahfaahiyaan. marwadan ayaa maxkamadda ka hor cadeysay in iyadoo 19 sano jirta ay u safri jirtay meelaha caanka ah ee loo dalxiis tago oo ay ka mid tahay goobo loo dalxiis tago oo ku yaala jasiiradda dalkaasi Seychelles, halkaas oo markaasi iyaduna ay isku arkeen dad fara badan oo hantiilayaal ah kuwaasi oo lacagtan iyo in kaleba ayna waxba laahayn. markii dawladda Koonfur Afrika ay gabadha wax ka weydiisay halka ay ka keentay lacagta ayaa waxa ay sheegtay in ay tahay hadiyad ay ka heshay saaxiibkeed. lacagtaasina ay ku iibsatay qasri ku yaala magaalada Cape Town. sidoo kale lacag dhan 2.7 milyan oo dollarka Mareykanka ayay amaahisay shirkad ka shaqeysa dhismaha oo aabaheedu wax ku lahaa. Saad al-Hariri kama uusan jawaabin warbixintan uu qoray wargeyska, waxaana kooxda u qaabilsan dhanka warbaahinta ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan arrintani. Ra'iisul wasaare al-Hariri ayaa sidoo kale dalalka uu markaasi la leeyahay xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga. ra'iisul wasaaraha dalkaasi Lubnaan ee sunniga ah kana mid ah siyaasiyiinta ugu saameynta badan. Saad al-Hariri oo xiriir la leh dalalka Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa ah ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan ee sunniga ah kana mid ah siyaasiyiinta ugu saameynta badan dalkaasi, waxaana hantidiisa lagu qiyaasay lacag dhan 1.9 bilyan oo dollar.